inta soo goor waxay go'aamiyeen ninka iyo gurigiisa hal dumiyay daarul arqam bin abil arqam waa gurigii yaray rasuulku 39 ka saxaabi ku hayay ee uu diinta ku bareeyay ee uu ku dhuumanayay ee lagu soo dhaweynayay rasuulku kaleey salaatu wassalaam ee rasuulku uu dhufayska ka dhiganayay way rasuulku maalintii uu Madiina gacanta ku qabtay buu wariyaadahay guriga ugu horeeya ee muslimiintu ay helaan waxa siisan walaalkiina ninkaasi awgeedeen dhibtu diinta u soo maray waliki gurigiisa leeyri inta soo goor hal dumiyo ee awgeedeen wixii dhibe ku dhacday hal siibo rasuulku kaleey salaatu wassalaam guriga ugu horeeya in la soo gala waa markii uu dawladda dhidibada u taagay nabiga kaleey salaatu wassalaam ninimaka tiifiyada aad looga caayo ayaa maalintii balgubadla la qabsaday ayaan 250 inaba aanu xarshin kaga nimid waa maalintii tafsiirka anagu akhriyayna aanu intaanu sidaa u laabnay halka iska dhignay markii la yiri de waa la qabsaday balgubadle waadana dib balgubadla la qabsaday de maxaynu meesha ka fadhila intaanu sidaa iskaga laabnay baanu sidaa u tiirinay dagaalka dadkii xaq u arkay baanu kamid ahay biqad nadar dib badan oo naga soo gaadhay su'aalo badan oo laga weydiiyay laakiin dadkii ku qanacsanaa in la galo ayaan kamid ahaa markii aanu meeshii nimid ayaa meesha waxaa jira saraakiil aad u badan oo wareegayso dadkii ba isweydiiyay marka nin macallin yar xiran oo meel halkaas hurda ayaa inamadii jabhada u badnaa ilaahay ninkaas oo kaca mooyaane meesha laba galay marka ninkii baan dul tagayo subhanallah ibrahim dagaweynu ahaa ninkaas marka maanta tiifiyada aad looga caayo waxa la leeyahay wixii sarkaal jiray ayaa isu yimid wixii sarkaal jiray waxa la isku waafaqay dadkii meesha joogay ninkaas oo dhaqaaqa mooyaane in meesha la geli karay kalsoonida uu markaas ninkaas haystay ninkii maanta de waa ogtiin